dowladda federaalk Soomaaliya oo markaani ku dhawaaqday muddo kororsi hal sano ah xilli markaani maalintii shalay ahayd dastuurkii guud ahaanba la ansixiyey mucaaradka godkooda biyo ayaa ugu soo galay qodobada kale haddii aynu eegno daawadayaal waxaa qayb ka noqonaya markaani gudoomiyihii baarlamaanka Masar Ansax Sheekh Aadan Madoobe oo markaani sheegay cidii dastuurka ka hortimaada in markaasi loo aqoonsan doono dambiile qaran iyadoo markaani muujada siyaasadeed ee haatan Soomaaliya ay markaasi marka kasii dambayso ay aad u suxmaanayso dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Birmadi Xasan Sheekh ninkii ahaa haatan waxa uu bilaaway weerar ka dhan ah siyaasiyiinta mucaaradka isagoo weeraray markaani guriga magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii sagaalaad ee markaasi jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xabiibul Malaayiin dhinaca kalena haddii aynu eegno dhankaas iyo koonfur galbeed madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen caawa godkiisa ayay biyo ugu soo galeen kadib markii mucaaradkii badbaadada guud ahaanba ay haatan markaasi faraha soo saareen agaarka magaalada Baydhabo iyagoo haatan markaani la wareegay ayaa la leeyahay magaalada Qansax Dheere ee gobolkaasi Baay isagoo haatan markaasi ku maqan safar dhankaas iyo dibadda xaaladda markaasi koonfur galbeedna jahawareer iyo sidoo kale markaasi muujad siyaasadeed oo aad culus ayay gashay saaxiib yaal waxaan rabaa markaasi xogihii ugu dambeeyay markaasi arrimahaasi inaan kula wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysa ama soo boqoto fadlan youtube-kana subscribe saar muuqaalkana like saar siina share garay wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faallada noogu reeb maxaa ka aaminsan tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu haatan bilaaway ugaarsiin ka dhanka markaasi siyaasiyiinta kasoo horjeedo dowladda federaalk Soomaaliya haddii aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya markaasi dowladda federaalk Soomaaliya caawa saaxiib yaal waxay ku dhawaaqday markaasi muddo kororsi hal sano ah kadib markii gudoomiyihii baarlamaanka Sheekh Aadan Madoobe waxa uu sheegay in dastuurkani markii uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kadib xukuumadda haatan taagan madaxweynaha ugu horeeyo iyo sidoo kale baarlamaanka in ay sii shaqeyn doonaan ayaa la leeyahay saaxiib yaal hal sano oo markaasi muddo kororsi ah mucaaradka iyaguna waxay leeyihiin markaasi sababta ugu weyn ee markaani madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo markaani dastuurka u ansixiyay ayay ku soo waramayaan in markaani uu markaasi kaga gol lahaa ayay leeyihiin in markaani muddo kororsi rasmi uu sameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya muddo kororsiga markaasi uu doonayna caawa markaasi ayay ku dhawaaqday dowladda federaalk Soomaaliya kadib markii meel si cad ah markaasi gudoomiyihii dhanaa ee Masar Ansax Sheekh Aadan Madoobe markaasi uu ka dhawaajiyay in haatan wixii ka dambeeya xukuumadda markaasi uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay sii shaqeyn doonaan ayuu leeyahay markaasi muddo hal sano ah waxa uu leeyahay dastuurkii qabiyada markii laga soo tago dastuurka ay haatan yeelatay dowladda federaalk Soomaaliya wixii ka dambeeya markii uu saxiixo ama qalinka uu ku duugo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadda fila Soomaaliya iyo sidoo kale markaasi baarlamaanka waxa ay sii shaqeyn doonaan ayuu leeyahay hal sano oo markaasi ka baxsan muddo xileedkii markaasi horay markaasi oo ahaa dastuurkii qabiyada saaxiib yaal markaani ku dhawaaqista Sheekh Aadan Madoobe ayaa timid kadib markii xaflad markaasi hotel Iled ee magaalada Muqdisho ay ku qabanayeen markaasi xubnaha markaasi baarlamaanka oo markii shalay ku dhawaaqay ansixinta markaasi dastuurka dhammaan xildhibaanadii markaasi golaha shacabka iyo sidoo kale kuwii aqalka sare ayaa xafladani afur wadareerka ka soo qayb galay gudoomiyahana ayaa halkaasi ku dhawaaqay in ansixintii shalay kadib markaani fila Soomaaliya ay haatan u diyaar garooweyso hal sano oo markaasi muddo kororsi ah dhinaca kalena xaaladda Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa laga dareemayaa markaasi saansaan colaadeed kadib markii ku dhawaaqistii dowladda federaalk Soomaaliya ay ku dhawaaqday markaani in hal sano oo markaasi muddo kororsi ay sameyn doonaan mucaaradka arrinkani miyay ku qanci doonaan iyagoo markii horeba muran iyo sidoo kale markaasi eedan culus markaasi dusha ka saarayeen markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxayna ku eedeeyeen markaani in dastuurka uu hal dhinac ka raran yahay maadaama markaasi dastuur aan loo dhameyn markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo markaasi horgeeyay baarlamaankina ay ku dhawaaqeen markaani in dastuurkani uu yahay mid ansax iyadoo markaani fila Soomaaliya markaasi khilaafka kala dhaxeeya maamulada kale ah Jubbaland iyo sidoo kale Puntland uu gaaray heerkii markaasi meeshii ugu sareysay iyadoo markaani shirarkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho markaasi uu ku soo dhamaaday is-afgaranwaa kadibna madaxdii dowlad goboleedyada Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni waxay markaasi dib ugu laabteen magaalooyinkii ay horay ugu yimaadeen kadib markii markaasi ay ku qanci waayeen markaasi waxa uu wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kalena haddii ay eegno saaxiib yaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ninkii ahaa waxa uu bilaabay markaasi ugaarsiga ka dhanka markaasi siyaasiyiinta markaasi siyaasadiisa kasoo horjeedo oo markaasi ugu horeeya ayaa leeyahay madaxweynihii markaasi sagaalaad ee dowladda federaalk Soomaaliya ninkii ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
farmaajo xalay gurigii uu ka degnaa magaalada muqdisho waxaa weeraray markaasi ciidamada markaasi koofi casta ee markaasi madaxtooyada markaasi ka arrimiya kuwaasi oo ah markaasi ilaalada gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weerarkan markaasi ayaa kusoo aadaya xilli xalay magaalada muqdisho markaasi madaxweyne farmaajo uu markaasi kulan markaasi albaabada ay u xiran yihiin uu la qaatay markaasi xildhibaanada beesha daarood oo sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey markaasi ku xirnaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya markaasna ayaa weerarkan ayaa yimid kadib markii farmaajo uu markaasi la kulmay xildhibaanadii markaasi kasoo jeeday puntland oo halkaasi isxogwaraysi dheer ah kadibna uu la hadlay warbaahinta sidoo kalena markaasi weerar afka uu ku qaaday markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud weerarkii afka markaasi oo farmaajo ku qaaday xasan sheekh maxamuud ayaa timid kadib markii xasan sheekh maxamuud uu ku xumaaday weerarkii markaasi farmaajo kusoo qaaday waxaana suurto gashay ayaa laleeyahay markaasi in xasan sheekh maxamuud ciidamo markaasi uu diro ayaa laleeyahay guriga markaasi uu madaxweyne farmaajo ka degan yahay magaalada muqdisho weerara ayaana halkaasi ka dhacay iyadoo markaani sidoo kale khasaaraha markaasi weerarkaasi ka dhashay ilaa iyo haatan aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin maadaama markaasi weerarka uu xilligu dhacay ay ahayd xilli habeen ah dhankaas iyo maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagreen ah madaxweynaha markaasi muddaxileedkiisu uu sii dhammaanayo ee markaasi hogaaminaya k g s ama south west ninki ahaa markaasi waxa uu la kulmaya ayaa laleeyahay mucaarad aad u huweysan oo markaasi kasoo horjeedo markaasi madaxweynaha markaasi cabdicasiis maxamed laftagreen qaab siyaasadeedkiisa laftagreen haatan markaasi mucaaradka markaasi la magac baxay badbaadinta koonfur galbeed waxa uu kala kulmaya markaasi ayaa laleeyahay dagaal aad u xoogan markaasi mucaaradkana iyaguna haatan idahadooda saaxib yaal markaasi waxa ay weerar kusoo qaadeen ayaa laleeyahay magaalada qasax dheere guud ahaanba qansax dheere oo ka tirsan gobolka bay saaxib yaal haatan waxaa ka arrimanaya badbaadada mucaaradka koonfur galbeed waxaana markaasi ciidamadii markaasi koonfur galbeed ee daraawiishtaha lagu soo waramaya in markaasi dib u gurasho ay kaga soo sameeyeen qasax dheere iyagoo haatan markaasi yimid ayaa laleeyahay xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ee baydhabo oo markaasi ay ku sugan yihiin ayaa laleeyahay ciidamada markaasi etoobiyaankii ayay naf kasoo raadiyeen ugu dambeyn waxay kusoo biishubteen markaasi halkii looga ariminayay koonfur galbeed ee soomaaliya magaalooyin ay ka mid yihiin markaasi buur hakaba iyaduna waxaa ka socda markaasi saansaan colaadeed oo markaasi loogu soo horjeedo madaxweynaha markaasi waqtigiisa uu sii dhammaanayo cabdicasiis maxamed laftagreen oo markaasi halkaasi kaga kulmaya ayaa leeyahay ciidamadii ugu badnaa oo markaasi mucaarad ah mucaaradka koonfur galbeed aad ayuu u xoogeysanayaa iyadoo markaasi saacadihii ugu dambeeyey markaasi laga dareemayay markaasi ciidamo markaasi aad u tiro badan oo markaasi kasoo horjeedo markaasi xukuumadda uu hogaaminayo cabdicasiis maxamed laftagreen kooxdan la magac baxday badbaadada mucaaradka ee koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba waxay doonayaan daawadayaal in ay meesha ka saaraan madaxweynaha markaasi haatan jooga ee muddaxileedkiisa uu sii dhammaanayo cabdicasiis maxamed laftagreen baarlamaanka sheekh aadan madoobe caawa fagaaro cad ayuu ka sheegay markaasi ciddii ka hortimaada dastuurka markaasi dhowaan ay ansixiyeen labada aqal ee markaasi baarlamaanka waa aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka waxa uuna markaasi khudbad isagoo markaasi ka jeedinaya xaflad ka dhacday magaalada muqdisho sheegay in haatan wixii ka dambeeya ciddii ka hortimaada dastuurkii ay ansixiyeen baarlamaanka markaasi loo aqoonsan doono sidoo kale dambiile qaran sidoo kalena markaasi tallaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonto filla soomaaliya waa kan aadan madoobe oo khudbad la yaab leh khudbadaasi oo markaasi ka cadaysiisay siyaasiyiinta mucaaradka oo ugu horeeyaan golaha samata bixinta oo markaasi ka jeediyey xafladii markaasi ama kasoo qaybgalkii anfur wadareedkii ka dhacay hotel ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya baarlamaanka wuxuu shaqayn doonaa inta dastuurka tilmaamay dastuurka kan hadda la ansixiyey intuu tilmaamay buu baarlamaanka joogi doonaa siyaasadda soomaaliya marba marka kasii dambeyso muujad cusub ayay sii galaysaa mucaaradkuna waxa ay kasoo horjeedaan markaasi muddo gararsi ay sameyso markaasi dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha markaasi muddaxileedkiisa uu sii dhammaanayo ee xasan sheekh maxamuudna dastuurkii waxaa ka dhiman markaani in uu ansixiyo sidoo kalena uu qalinka u qaato haddii xasan sheekh maxamuud qalinka markaasi ku duugo ansixinta dastuurka madaxweynaha waxa uu talada sii hayn doona ayaa leeyahay hal sano maxaa kaaga baxay muddo gararsiga uu doonayo madaxweynaha markaasi jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud xilli mucaaradka ay kasoo horjeedaan muddo gararsi inuu sameeyo ama laga sameeyo filla soomaaliya wixii fikirkaaga qaybta hoose ee faallada noogu reeb saaxiib yaal